haddii laga aaminsan yahay inaad ku dhex jirto musuqmaasuq ama gudoomiye degmo ah ama booliis ah ama ra'iisul wasaare ah waa hubaal inaadan ku najaxayn haddii laga aaminsan yahay inaad ka shaqayso qabyaaladiina jeclaysay waa la hubaa inaadan najaxayn marka waxaan u baahannahay dad Soomaaliyeed oo yiraahda 28 sano la soo dhaafaa dib noogu filan sanadkan soo socda waxaan aqbalaynaa inaan u dhaqano sida hore si ka duwan sanadkan soo socda waxaan iska daynaynaa qabyaaladii waxaan iska daynaynaa laalaabka waxaan iska daynaynaa jeclaysiga waxaan iska daynaynaa cabsida sanadkan soo socda waxaan isku dayaynaa inaan ummadda Soomaaliyeed ugu adeegno sida hore si ka duwan hadda idinka jooga degmooyinka gobolka Banaadir idinka jooga booliska annaga joogna xafiisyada dawladda annaga nala sheegaya maxaad soo qabateen haddii aad u shaqaynaysaan inaad ka cabsataan inaad wax bedeshaan xal ma imaan doono haddii wali laga baqaayo in dhulkii dawladda aad ku shaqaysaan sababtoo ah siyaasad ayaa dib keenaysa xal keenaysaan haddii gudoomiyaha gobolka Banaadir aanu soo celi karin dhulka dawladda haddii dhulka dawladda oo lagu shaqaynayo aad uga baqaysaan siyaasad dalkan meel geenmaysaan haddii aadan ilaalin karin hantida ummadda haddii saldhigii booliska aanu haysan dhul uu ku shaqeeyo shacabna uu iska haysto idinkuna aad haysataan awoodi waanaad soo sheegaysaan gudoomiye walba oo degmo shaqada ugu horeeya laga rabo waa inay tahay inuu ilaaliyo hantida degmadaas siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu qoraal warqad ku soo qoray waxay tahay inaan dhul la bixin karin inaan lagu fari karin dhulka ummadda Soomaaliyeed marka uu madaxweynuhu wareegtada soo saaro waxay tahay macnaheedu in idinka la idinka rabo inaad sugtaan wareegtadaas inay dhaqan gasho ummadda Soomaaliyeed idinka kula xisaabtamaysa ilaahayna kula xisaabtamaya laaluushka laalaabka musuqmaasuqa qabyaaladda nin jeclaysiga waddanka in laga ilaaliyo waay marka dalku hagaago qof walba Soomaaliyeed noloshiisu way hagaagaysaa haddii laakiin qof walba Soomaaliyeed u soo shaqo tago dalkan maxaan ka helaa qofina aanu u soo kicin saaka dalka maxaan ku taraa waa xisaab naaqusa waa xisaab ay wax ka dhiman tahay waxa la isku haystaa marka waxay tahay sida hore aan ku jirnaa ama isbedel baan sameeynaa haddii qof walba Soomaaliyeed oo xukunka loo dhiibo uu isku dayo isagu inuu wax ka raadiyo intuu dadka wax u raadin lahaa waligaan meesheen aan joogeynaa waa dhab waa in la isku qiyaasaa qof walba waxa uu galay waa inay jirtaa mas'uuliyad ah degmo hebel iyo degmo hebel haddii amni darra ay ka dhacdo waa in qof hebel iyo qof hebel loo soo xiri karo maxaa waxaanoo jenaraala u joogaan haddii qaraxay dhacayaan maxaanu leenahay intaasoo gudoomiye degmo haddaan la ogeyn waxa dhacaya waa in gudoomiyaha degmadu uu abaal mariyaa gudoomiyaha gobolka Banaadir uu abaal mariyaa degmadii gudoomiyihiisu ku guuleysto shaqo wanaag hufnaan karti waa in taliyaha boolisku uu abaal mariyaa taliyihii ku guuleysta inuu meesha uu ka shaqeynayo qarax ka ilaaliyo waa in la soo xiraa kuwa laaluushka qaata kuwa musuqmaasuqa sameeya kuwa dhulka dawladda dhaca madaxnimada macnaheedu waxa ay tahay waa inaad maya iyo haa dhihi kartid
waa inaad go'aan adag gaari kartid waa inaadan kursigaada ilaashan waa inaad dalka khatar u gali kartid xataa haddii kalifaysa inaad kursigaada ku weysid madaxnimadu waa qora isu dhiib meel inaad geysid waayo qofka kale uu ka sii qaado haddii marka ramadaan walba la soo gaaro aan isu nimaadno aan ka cabsano qaraxa ramadaanku marka uu baxana aan sidaana ku noqono annagay wax naga sheegaysaa ayaa cidda ana ummadda Soomaaliyeed naftoodu qiimay leedahay booliisow ummaddan Soomaaliyeed dhiigeedu qiimo weyn oo noogu fadhiya amniga inta aadan sugin ka hor waa inaad tiraa khatar miyaan keenaya waa muhiim in la isla xisaabtamo taliya waa muhiim inaan aqbalno sidii hore si ka duwan inaan u shaqeyno waa in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu la xisaabtamaa gudoomiyaasha degmooyinka gudoomiyaasha degmooyinkuna ay la xisaabtamaan kuwa ka hooseeya ilaa laamaha waa muhiim taliyuhu inuu la xisaabtamo dadka askarta ka hooseysa waa muhiim madaxweynuhu inuu ila xisaabtamo sidoo aniga ila xisaabtamo annaa wasiiradeedu la xisaabtamo isla xisaabtan dhab ah waa muhiim dawladnimada in la soo daadajiyo ilaa laanta degmada laga gaarayo waxaa marka rajaynayaa in annaguna anteena ka soo bixi doono wixii aad nooga baahataan aad soo marsiinsataan gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidanka booliska laakiin waxaan la aqbali karin in mar walba magaaladan qarax uu ka dhaco sidoo idinku wargeliyay madaxweynaha markuu idin yeeray mayaan dhaweed waa in la isla xisaabtamaa meel walba ciidan baa taagan meel walba askar baa joogta meel walba degma ku taala gudoomiyaha jooga maamul baa jira waa inaan ognahay meesha dhib ku yaalo haddii aan ogaano meesha dhib ku yaalana waa inaan ognahay cidda mas'uulka ah cidi waa inay mas'uuliyad qaadaa markii dhib dhaco waa in cid lala xisaabtama taliyaha iyo gudoomiyaha waxaan ka codsanayaa inay idinla shaqeeyaan idin caawiyaan laakiin idinla xisaabtamaan sida iyagaba annagu aan idinla xisaabtami doono idinkana kuwa idinka hooseeya waa inaad la xisaabtantaan ugu dambeyntii waxaan naloo dhiibay annaga waa ammaanada ummadda Soomaaliyeed haddaad saldhig boolis joogtid haddaad gobolka joogtid haddaad dekada ka shaqaysid haddaad wasaarad ka shaqaysid haddaad gobolka Banaadir joogtid oo waaxda dhulka ka shaqaysid ammaanada ummadda Soomaaliyeed waa in la ilaaliyaa sida kaliya oo shacabka ummadda Soomaaliyeed nagu aamini karaan waxay tahay inaan dareensiino inaan leenahay ammaano inaan xoolahooda nagu aamini karaan markaas ay canshuurta kordhaysaa markaas amnigu wax laga qaban karaa laakiin haddii nala ka aaminsan yahay inaan nala aamini karin waxa ogaataan aan weligeena meesha joogeen marka ugu dambaysa mas'uuliyaddu ma ahan kaliya in shaqadaada aad ku sinaato mas'uuliyaddu waxay tahay haddii aad ogtahay qof qalad sameynaayo taliya laaluush qaadanaya wasiir laalaab ku jira dhul la boobayo wax walba oo khalada oo aad ogtahay oo aad qariso macnaheedu waxay tahay inaad taakuleynaysid qof ka shaqeynaya baabiinta qarannimada Soomaaliyeed dhaqankii wanaagsanaa ee dawladnimada waa in la soo celiyo sida kaliya oo lagu dhisi karo waa in meesha ugu hooseysa laga soo bilaabo marka waa nasiib wanaag inaan caawa u helnay fursad inaan aragno gudoomiyaasha degmooyinka
maalin dhoweed waxaa la kulanteen madaxweynaha wuxuu idin sheegay inuusan ku qanacsanayn amni darrada magaalada soo sidaas ma waxaan idinkugu soo celinayaa in fariinta madaxweynaha idin soo gaarsiiyey idinkoo ku mahadsan shaqada ilaa hadda aad soo qabateen iyo tan aad qaban doontaan in fariintii meesheeda ay tahay laga bilaabo maantay waxaan idinka codsanayaa in amniga magaaladan sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto wixii aad nooga baahantaanna aadna soo weydiisataan laga bilaabo maanta waxaan codsanayaa in shaqadiina isla xisaabtan ay ku salaysnaado laga bilaabo maantay haddii ciidanka kula shaqeeyo mid ka mida uu khalad sameeyo ama laalaab sameeyo fadlan shaqada ka ceyri haddii guddoomiyaashaada qaarkood ay shaqadaada ka soo bixi waayaan fadlan shaqada ka ceyri haddii iyagu ay shaqadooda ka soo bixi waayaan fadlan noo soo sheega maalin dambe lagama lumi karto waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi